qaar baaba inaan calaacalayo u qaatay markaan lahaa war colaad deegaan iyo ood wadaag aan iska dayno waa ku bogaadinaya inay isdifaaceen in badan bay dul qaateen waa ku bogaadinaya in ay isu tabaabusheeyeen inay nafahooda iyo adduunyadooda iyo dadkooda difaacaan sanduuqii iyo codkii baa inoo hadhay raq doorashaynu maanta dul fadhina waxaan leeyahay dareenkaas yuu inaga lumi haddii hoggaan wanaagsani waddankan uu leeyahay colaaddaasi ma dhaco xaaladdaa ka curatay deegaankaa u dhexeeya Qorligud iyo Buuhoodle colaaddaas marar badan baan ka digay marar badan baan bulshada ood wadaagta colaadeeda dhinacyo iska taagay inta nabaddu joogto ayaa ninba laba nin leeyahay bay Soomaalidu ku maamaalaan waan ka xumahay waqti aan munaasib ahayn colaadaan munaasib ahayn wiyo colaaddaas waxaana sida cadceedda u cad in duulaankaasi iyo gardarradaasi ay ka timi dhinaca shishe dad waaweyn oo mas-uuliyiina baanu nahay ummadoodayaal baanu u nahay kuma shaqeeyo anigu aragti qabiil shalayba dareemada colaadda si badheedha baan uga horin laakiin waxaa muuqata in aan dhinaca shishe nabaddiina qiimayn odayaashaasina dhallinyaradoodiina gacanta aanay ku qabanayn maanta waxba odhan maayo madaxda iyo mas-uuliyiinta iyo odayaasha dhinaca shishe waxba odhan maayo marar badan baan hadalla idhiyo qaar baaba inaan calaacalayo u qaatay markaan lahaa war colaad deegaan iyo ood wadaag aan iska dayno ee aan ku mahmaahayey saddex lalooma coloobo nin codkaaga yaqaan nin cagtaada yaqaan iyo nin ciddaa tahay yaqaana waxaan leeyahay bulshada deegaanka dhinaca soke yaanu odayaasha u nahay waxaan leeyahay marxalad adag baynu ku jiraa waa ku bogaadinaya inay isdifaaceen in badan bay dul qaateen waa ku bogaadinaya in ay isu tabaabusheeyeen inay nafahooda iyo adduunyadooda iyo dadkooda difaacaan dareenkaasaan la qabnaa dareenkaasaan la wadaagaynaa marna ku talin mayno dulmi iyo duulaan laakiin waxaanu kula barbar joognaa inay isdifaacaan oo dadkooda iyo dunyadooda difaacaan waxaan leenahay dalkan doorashuu u dhaqaaqay 10 maalmood wax ka yar baa doorashadii ka dhacay baa ka hadhay sanduuqii iyo codkii baa inoo hadhay raq doorashaynu maanta dul fadhina waxaan leeyahay dareenkaas yuu inaga lumi dareenkaa doorashadu yuu inaga lumi waayo doorashadan waa tii jaangoyn lahayd hoggaamiyihii ummaddan iyo qarankan haddii hoggaan wanaagsani waddankan uu leeyahay colaaddaasi ma dhacdeen qaabkaana umay dhacdeen amintaana may dhacdeen ummaddani hoggaan fiican ayay u baahan tahay waxaynu kala dooranaynaa laba adag maanta dariiq saxa iyo midaan saxayn waxaan leeyahay yaynaan duruufaha inagu gadaaman ee saamaynta inagu leh oo aynaan dafiri karayn iyo inaga duwin dariiqii doorashada waynu kari karnaa inaynu labadaba isku hayno gacan aynu isku difaacno iyo gacan aynu ku xaqiijino doorashadeennii aan labadaba isku hayno
أن تواسن كسمين آدي أدباد مهدسنتهين برشاد السومالي لان لما أنتوذبا وحان لا يهي وقباقياه إنو نؤدي أرقرون الدور الشدع وحان لا يبرشاد تاغير isbedelka aynu u baahannahay bay ka mid tahay waxyaalahan sidii loo xallin lahaa urur siyaasadeedka ka isagoo bulshadiisa la dareen wadaagaya gobollada Togdheer iyo Sool iyo Sanaag banaanbaxyadii berito waxaanu goosannay inaanu joojino oo hakino laakiin gobollada galbeedka waa laga banaanbaxayaa berito waa maalintii ka dhammaanba madaxda iyo mas-uuliyiinta urur siyaasadeedka ka ee gobollada iyo deegaanada gurmadada ku tegey dhammaantoodba hadday yihiin xildhibaano hadday yihiin howlwadeenno waan wada bogaadinayaa dhammaantoodba salaadiinta iyo waxgaradka iyo odayaashana iyagana si gaara baan u bogaadinayaa